asalaamu calaykum maqaarti meel wajibtiin oo markale muuqaal cusub ku eegi doona wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga iyo akhbaaraadada xilligan suuqa laga diiwaan gelinayo. Chelsea oo si rasmi ah u soo bandhigtay Jamie Gedson xilli Arsenal laba wada kaliya midkood ay ku soo xirigelinayaan Victor Gyokeres. Arsenal horumar weyn ka sameynaysa heshiiska shakhsiga ah ee Madueke. Manchester United oo soo bandhigtay Diego Leon oo haatan ku soo biiray xilli Ndidi ay doonayaan. Tottenham oo markan ka cabsi qabta in Mohamed Kudus laga dulqaado. Al Nassr oo markaan doonaysa ninka lagu magacaabo Rodrigo iyo akhbaaraadii kale oo suuqa ku aadanayaan eegana haddii aan muuqaalka ka hesho garay kanaalkana subscribe noo saar. Haddii aan ku bilaabnaa wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga akhbaaraadii dhowr ayaa xilligan jira. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa markaan horumar weyn ka sameynaysa laacibka lagu magacaabo Madueke sidii haatan wargeysada ugu waaweyn haatan ay daabacayaan. Majalada Sky Sport iyo majaladaha kale dhammaan haatan waxay daabacayaan in Arsenal ay horumar weyn ay ka sameynayso heshiiska shakhsiga ah ee la gaalayaan laacibka lagu magacaabo Madueke ayaa u muuqanaya markaan mid u dhaqaaqaya qalcadda caanka ah ee Emirates Stadium isagoo ka soo ruqaansanaya dhanka Stamford Bridge. Haatan heshiis ayaa dhacaya waana heshiis shakhsi ah oo Arsenal ay la gaaraysa laacibka lagu magacaabo Noni Madueke. Arsenal ayaa haatan suuqa ka baadigoobaysa ciyaartoy oo ka mid yahay Madueke Isa iyo Rodrigo. Marka haatan kooxda kubadda cagta Arsenal waxay heshiis shakhsiya marka la gaarayaan laacibka lagu magacaabo Madueke kaas oo dhanka ay Chelsea ugu soo dhaqaaqaya wuxuuna noqonayaa saxiix labaad oo haatan suuqan gudihiisa Arsenal ay ka soo qaadayaan kooxda kubadda cagta Chelsea kadib Kepa Arrizabalaga. Marka nimanka Arsenal haatan heshiis ay la gaarayaan laacibka lagu magacaabo Madueke. Dhinaca kale tana kooxda kubadda cagta Arsenal haatan waxaa la leeyahay go'aan ay qaateen oo ay ku soo xirigelinayaan ninka lagu magacaabo Gyokeres waana go'aan laba wada midood ay haatan ku soo xirigelinayaan xidigan sidii haatan majalada lagu magacaabo Team Talk ee daawaceyso. Arsenal laba isbuuc ay haatan u qabteen in xidigan lagu dhameeyo sheekadiisa 19 bishan ayaa la rabaa laacibka sheekadiisa ugu dambeyn in la iska soo gabagabeeyo. Macallin Mikel Arteta ayaa Andre Barreto oo suuqa u qaabilsan haatan ku cadaadinaya sidii loo soo gabagabeey lahay Victor Gyokeres sheekadiisa. Labada wado waa laba wado oo kala ah in Arsenal ay bixiyaan lacag 70 milyan iyo 10 milyan oo odisa iswadartan waxay noqonaysaa 80 ama Arsenal inay wada kala raacaan oo ah inay bixiyaan lacag gaaraya 60 milyan inay 60 milyan bixiyaan 10 milyan gadaal ka bixiyaan 8.5 milyan xilli kale ay bixiyaan waa saddex lacagood wadartu waxay noqonaysaa lacag gaaraya adiga 80 milyan ay sadad ban ku bixinayaan 60 balas 10 70 balas 8 waa 8 milyan oo wax yar dhiman. Arsenal labada wada midood ayaa haatan leeyahay way qaadayaan haatan laba isbuuc oo ay haatan u qabteen waqtiga kama dambaysta ee xidiga lagu soo xirigelinaya. Marka Arsenal xidiga badan oo weerarka ay doonayaan oo waxa qayb ka Dusan Vlahovic Benjamin Sesko iyo laacibka lagu magacaabo Victor Gyokeres. Marka Arsenal haatan laba isbuuc ay haatan haystaan si sheekada ninkan u gabagabeeyaanba. Dhinaca kale tan kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa haatan si rasmi ah u soo bandhigtay wiilkooda cusub ninka lagu magacaabo Jamie Gedson kaas oo ka soo qaadeen kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund. Sheekadu waa isku soo dhamaatay laacibka lagu magacaabo Jamie Gedson si official ama rasmi ah ayaa markan loo soo bandhigay laacibkana waa laacib kooxda kubadda cagta Chelsea. Marka xidigan Chelsea isbuucii haatan dhamaaday ayay gabagabeeyeen sheekadiisa dhinac iska dhigan asiga iyo ninka lagu magacaabo Joy Pedro. Marka kooxda ka dhisan Stamford Bridge xidiga kale ay haatan u jeesanayaan waxayna rabaan rag kale inay suuqa ka soo qaadaan. Marka kooxda Chelsea ugu dambeyn waxay soo bandhigeen Jamie Gedson. Sidoo kale tan akhbaaradeeda xilligan jira qayb waxa ka ah kooxda kubadda cagta Tottenham ayaa markan ka cabsi qabta in laga dulqaado xidiga lagu magacaabo Mohamed Kudus ayaa haatan heshiis la gaarayeen kooxdiisa West Ham walow kooxda West Ham iyo nimanka Tottenham xidig ay kala qaataan ay ugu dambeysay 2011 wixii intaa ka dambeeyay saxiix labada dhinac ma dhexmarin. Haatan wargeysyadu waxay qorayaan siba majalada Team Talk waxay leedahay kooxda kubadda cagta ee Tottenham waxay ka cabsanayaan in ninka Mohamed Kudus laga dulqaado oo kooxda kubadda cagta Chelsea ee xidigan afduubato. Chelsea ayaa haatan xidigan la xiriirinaya iyagoo laacibkan haatan raba inay Tottenham ka afduubtaan. Marka nimanka lagu magacaabo Tottenham sida ay ka baqayaan Daniel Levy iyo xirtiisa haatan nin ay u xil saareen in sheekadan uu soo gabagabeeyo waxayna rumaysan yihiin in Mohamed Kudus ay soo xirigelinaya walow sheekadu ay kala duwan tahay. Marka Mohamed Kudus haatan waxaa la leeyahay dhanka ay Tottenham ay u dhaqaaqaya waana saxiix waaliya hadday helaan Tottenham ayaa xidigan lacag badan ku doonaysa walow haatan challenge adag ay kala kulmayaan kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Marka haatan waxaa la leeyahay si secret weapon ay u adeegsanayaan ama hub qarsoodiya ay haatan u adeegsanayaan heshiiska laacibka lagu magacaabo Mohamed Kudus. Marka kooxda kubadda cagta ee Tottenham dalab ay laacibka ka gudbiyeen waa laga soo diiday iyaga ee Newcastle ba haatan waxaa laga yaabaa inuu heshiiskaas burburo
gebi ahaanba walow Chelsea ay sheekada ku jirto marka Spurs mar walba waxay taagan tahay Kudus waa qaadanaynaa wax walba oo dhaco walow ay nimanka Chelsea uga baqayaan in sheekada soo galaan oo laacibkan xaggooda uu qaado maanta macalinka lagu magacaabo Enzo Maresca ayaa wax laga weydiiyay arrimaha ninkan wuxuu yiri maya arrinta hadda kama hadlayo adiga ileel Ajax xilliga uu ku sugnay ninkan waa daba taagnin ayuu markaa yiri marka taa waxay tusinaysaa in Maxamed Kudus kooxda kubadda cagta Chelsea ee ilgooniya ku hayso dhinaca kale tan akhbaaradeeda xilliga jira qayb waxa ka noqonaya kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa iyaduna si rasmi ah u soo bandhigtay ninka lagu magacaabo Diego Leon kaas oo ay ka soo qaadeen koox ka dhisan dhanka iyo Paraguay xidigan waxay Manchester United la saxiixdeen sanadan haata lagu jiro 2025 bisheedii 1 January ayay xidigan la saxiixdeen marka xidigan xilliga uma soo duuli kareen Ingiriiska maadaama laacibkan uu da'yar yahay sidaa daraadeed April ayuu haata ninkan oo noqday xidig weyn oo qaangaara sidaa daraadeed Manchester United haata ninkan way soo gabagabeeyeen marka ugu dambeyn Manchester United xidigan haatan ayay soo bandhigeenba marka Manchesterna sidoo kaleeto haatan waxay doonayaan laacibka lagu magacaabo Ndidi ay haatan doonayaan inay soo xirgeliyaan xidigan waxay u arkaan bedelka laacibka lagu magacaabo Casemiro maadaama xidigan xil ciyaareedka hada walow uu fiicnaa Casemiro laakiinse sidii laga rabay Manchester United ma aysan haatan waxa la leeyahay laacibka lagu magacaabo Ndidi ay doonayaan inay soo xirgeliyaan waliba qiimo jaban ay Manchester United ku heliyaan xidig lagu magacaabo Ndidi marka kooxda kubadda cagta Leicester City xidigan waqti badan ayuu halka ku sugnay United haatan waxay doonayaan 9 milyan lacag inay laacibka lagu magacaabo Ndidi ay ku soo qaataan marka United haatan waxay u tafaxiidanayaan laacibka lagu magacaabo Wilfred Ndidi inay soo qaadaan shaadin xumra ninkan ay u arkaan mid ku haboon qalcadda Old Trafford marka walow competition qaar ay la kulmayaan oo koox kale laacibkan aad u xiiseynayaan laakiin Manchester United haatan iyada ayaa ugu cadcad inay hesho laacibka lagu magacaabo Wilfred Ndidi marka Wilfred Ndidi haatan waxa la leeyahay shaxda macalinka la yiraahdo Amorim oo 3-3 uu ku soo baxaya waana kubad burburiye waana kubad dhise marka Casemiro ma kubadda lugta kuma haysan karo sida haatan bandhigiisu yahay laakiin waa kubad joojiye mustaqbalkiisana waa haatan waa nin shaki weyn la gelinayo ninkan waxa la dhahay Madrid ayaa si fiican ugu soo xamaalatay haatan wax laga sugayo ma lahan marka xidiga kale waa inay raadsanaa Ndidi ayaana haatan loo arkaa nin Manchester United markan ay soo qaadayaan waana ninka kaliya bedeli kara ayaa la leeyahay Casemiro waa kubad burburiye waana nin kubadda sharxi kara playmaker oo kubaddana haysanaya marka Manchester ninkan ayaa markaa soo xirgelinayaanba dhinaca kale tan kooxda kubadda cagta ee Al Nassr ayaa ku soo biirtay dagaalka loogu jiro Rodrigo ayaa haatan doonayaan kooxda kubadda cagta Al Nassr inay soo qaadaan xidigan Real Madrid waxay doonayaan lacag gaaraya 90 milyan inay ku iibiyaan sida daraadeed Bayern Munchen kooxda Arsenal Paris Saint-Germain ayaa dagaalka ku wada jira haatan kooxda reer Sacuudi Al Nassr ayaa sheekada ku soo biirtay oo xidigan waxay rabaan inay soo xirgeliyaan marka kooxda Al Nassr ninkan waxay rabaan in Cristiano Ronaldo oo ku daydo ay ka garab ciyaarsiiyaan marka Al Nassr haatan waxay u gacan taagayaan ninka lagu magacaabo Rodrigo Real Madrid iyadu waxay taagan tahay laacibkan hadduu baxayo wuu baxayayo anaguna lacagaha 90 milyan iyo wixii ka badan ayaa u baahanahay marka Real Madrid ugu dambeyn Rodrigo way fasaxayaan sheekadaas waa mid la hubo laakiinse Al Nassr iyo lacagaheeda miyuu aadi doonaa mise Arsenal oo si weyn u raadinaysa mise Bayern iyo kooxaha Paris midkood miyuu ku biiri doonaa iyo su'aashu markaan taagan tahaba dhinaca kale tan kooxda kubadda cagta ee la yiraahdo Newcastle ayaa markaan la wareegaysa ninka lagu magacaabo Elanga 50 milyan ay dalab u gudbiyeen kooxiisa Nottingham Forest laakiin waa laga soo diiday dalab kale ay haatan u noqonayaan xidigan ayaana noqonaya xil ciyaareedkan ama Newcastle lankeeda marka loo fiiriyo suuqa riyo ayuu noqonayaa waa dream transfer ayaa la leeyahay marka nimankan haatan waxay ku dhow yihiin inay helaan saxiix weyn waana ninka lagu magacaabo Anthony Elanga marka Anthony Elanga haatan kooxda kubadda cagta ee Newcastle ayaa qarka u saareen in sheekadiisa dhameeyaan marka akhbaaradeedana waxay ahayn kuwii ugu dambeeyay suuqa waan arki doonaa sheekooyinka kale wixii soo kordha haddii aan muuqaalkaysan wala garay kan ka subscribe nasar goodbye